تومبين mid ka mid ah aflaamta jacaylka saddex geesoodka marna la dhihi karo jacaylka laba geesoodka kaas oo ku soo canbaxay jilaaga caanka Brianshu. Filimkan waa mid ka mid ah aflaamta jacaylka ee Soomaalida qaar aad u xiiseeyaan. Haddaba waxaan la wadaagi doonaa xog iyo xaqiiqooyin u gaar ah, balse intaan u guda galin muuqaalkayga waxaan ka codsanayaa janaalka soo biirto muuqaalka dadka ee like inoo saar si share gareeyo la wadaaga asxaabtaada soo dhawaada saaxiibayaal. Filimkan Tombin waa mid ka mid ah aflaamta jacaylka sheeko ahaan aad cajiib ku ah. Waxa uu soo baxay bartamii sanadii 2001 laga yaabay dadyo badan hadda muuqaalkan daawanaya inaysan xilliga dhalan. Filimkan waxaa tiyaatarada Hindi la saaray 13 July sanadii 2001 waxa hogaamiyalkooda jilaaga caanka Brianshu waxa qayb ka lahaa aktarka lagu magacaabo Himanshu sidoo kale atirshada lagu magacaabo Sandali Sin. Markaan eegna filimkan waxa lagu qarash gareeyay adduun lacag gaaray 2.75 karoor una dhigata dollar ahaan marka la eegno in ka badan 385 kun oo dollarka Mareykanka waxa uu keenay 4.43 karoor una dhiganta dhanka kale marka la eego dollar ahaan in ka badan 615 kun oo dollarka Mareykanka. Saaxiibayaal natiijahan filim guuleysta ama guul fiican gaaray marka la eegana waxyaabaha xusuusta mudan waxa weeyaan filimkan xilligii tiyaatarada Hindi la saaray waxa tiyaatarada saarnay aflaam waaweyn ka oo hogaamiyay ka wada ahayn Amir Khan iyo sidoo kale Sinidol. Markaan eegna Amir Khan wuxuu watay filimkii caanka ah Lagan halka Sinidol uu watay filimka caanka ah Kadar waana filimkii ugu weynaa ee sanadaasi soo baxay ama sanadii 2001 inkastoo aflaam kale waaweyn ay soo baxeen sida Kabikushka Bigam laakiin filimkii ugu weynaa sanadkaas soo baxay waa filimka caanka ah Kadar. Filimkan looma maleeynin natiijo noocan uu soo hooyin kara saaxiibayaal markaan eegnana xaqiiqooyinka laga diiwaan galiyay ilaa dhowr xaqiiqo ayaan ka eegi doonaa saaxiibayaal. Xaqiiqada ugu horeysa filimkan waa filimkii ugu horeeyay uu ku soo canbaxay jilaaga caanka Brianshu aflaam kale oo ka soo muuqda jiro Soomaalida aad u xiiseeyaan waxa laga xusi karaa filimka caanka ah Dilka Rashita kaas oo hogaamiye ka ahaa ninka loo magacaabo Gaurav Ashuriya Rai sidoo kale aktarkan Brianshu qayb ayuu ka ahaa saaxiibayaal. Xaqiiqooyinka filimka laga diiwaan galiyay waxa kamid ah leeyahay filimka inta ugu badan muuqaaladiisa waxa lagu duubay dalka Canada. Xaqiiqooyinka filimka laga qoray waxa kamid ah saaxiibayaal filimkan waxa leeyahay ninka agaasimaha ka ah ama directorka ninka lagu magacaabo Abunaf Sin filimkan waa filimkiisii ugu horeeyay oo agaasimo ka noqdo sidoo kale waa filimkiisii ugu horeeyay guul u gaara. Xaqiiqada ugu dambeysay filimkan aan kala wadaagi doono waxa weeyaan filimkan sheeko ahaan waxa laga soo guuriyay filimka caanka ah Kinara kaas oo soo baxay sanadii 1977. Haddaba intaas ayaan ku soo gabagabeeyaa saaxiibayaal xogtii xaqiiqooyinka aan kala wadaagay filimka caanka ah Tombin waa mid ka mid ah aflaamta jacaylka anigu baan aad u xiiseeyay daawashadiisa. Fadlan haddii aad ka heshay muuqaalka like inoo saar si share gareeyo la wadaaga asxaabtaada waana ku mahadsantahay daawashada muuqaalkeena.